qoraxda sidoo kale waxaa loo yaqaanaa cadceed. waa shay weyn oo ka samaysan neefo ololaya. sidoo kale qoraxdu waa xidigta ay nolosha adduunka ku tiirsan tahay. iyada iyo meerayaasha waxaa la isku yiraahdaa bahda midaysay qoraxda. adduunka iyo meerayaasha kale waxay ku wareegtaan qoraxda, waxayna la wareegtaan waxyaabo baraf ah iyo boorka hawada, iyaga oo 99.8% buuxiya weyninka isku joogga qoraxda. qoraxdu waxay keentaa awood gaar ahaan ilays, taasi oo ku tiirsan tahay nolosha adduunka oo dhan. haddaba daawade, maxaa dhacaya haddii la waayi lahaa qoraxda? haddii ay midaasi dhacdo, ugu horeyn dhulka waxaa hareyn lahaa mugdi, waxa uuna noqon lahaa mid aad qabow u ah. asbuucyo gudahood heerkulka dhulka waxa uu noqon lahaa -20, taasoo sababaysa xayawaanada qaarkood in ay qabow u dhintaan. dhirta iyo geedaha way dhiman lahaayeen isbuucyo gudahood. badaha dunida way barafoobi lahaayeen iyaguna. dadka waxay u dhaqaaqi lahaayeen meelaha ay volkaanooyinka ka qarxaan. kuwa aan u dhoweynna qabow daran oo noloshooda halis gelin kara bay la kulmi lahaayeen. ugu dambeynna way u dhiman lahaayeen. dadka u dhow meelaha volkaanadu ka qarxda waxay heli lahaayeen kuleyl ku filan, laakiin iyaguna cunno la'aan bay u dhiman lahaayeen. sanad kadib, heerkulka dhulka waxa uu noqon lahaa -80°, waxayna noqon lahayd sida barafka oo kale. daawade, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. haddii aad ku cusub tahay channelkana, fadlan nagu soo biir oo subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga ee aan soo gelin doono. haddii aad horay u saartayna, waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. mahadsanidin.